isqarxintu oo qofku saxiyaa ma bannaan tahay weliba inaad gaala isku qarxiyaa su-aasha la socota waxa weeye waxaa jirta culimada qaar booriya ama dadka ku taxriiriya in la galo dhalinyarada al-shabaab ee ka dagaalama junuub soomaal arrintaa afiiduna afadakum allah masalada hore oo ku saabsan tafjiiraadka ama isqarxinta haddii ay dad muslim ah ama dad gaal oo dhiiggoodu macsuum yahay ilaan gaaladu kulli dhiiggoodu xalaal ma wada aha haddii ay wax ku noqonayaan oy ku wajahan tahay iyada hadal kama noola inay xaaraan tahay ninka sameeyeyna inuu yahay nin isdilay oo naftiisa dilay haddii cidda la isku qarxinayaa ay tahay gaalkaana uu yahay kii xarbiga ahaa ee dagaalkiisi iyo dilkiisu inoo bannaanaa suuradaa iyada ah wax horay u jiray maaha xaalado u yara eg baa la raaraadiyaayoo xilligii hore ma dhacday laakiin exactly wax bidabdi iyadoo kale ah ma dhicin waa naazila casriya marka naaziladii casriga markay dhacday waa dhacdo waa masale cusub masaladii cusub markay dhacday bay culimmadii marka fiiriyeen waana markay tahay baynu nidhi gaal xarbi ah markay ku wajahantay waxay isugu jiraan marka culimmadu qaar banneeyey qaar itlaaqan badiiday iyo qaar dawaabid iyo shuruud adag u dhigay saasay isugu jiraan waa masale marka masaa-isha baxfiga saaran ka mid a ragga dawaabidda u dhigay waxaa ka mid a sheekh ulalbani caleyh raxmat ullah meelaha mida ka mida kutubtiisa dhowr ah uu masalada kaga hadlay dawaabid buu u dhigay dawaabid ayna marnaba ku dabaqmaynin wax maanta jira marba kuma dabaqmayso sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmat ullah iyo culimo la socota raggaas waxaa la raaciyaa oo ka mida maalan muftigii hore ee sacuudiga sheekh maxamed ibnu ibraahim isagu masale wuxuu ka hadlay haddii ruuxa muslimka ah cadow qabsado cadowgiina uu ka yaabo intay cadaadiyaan inay sir ka soo saaraan si aan sirta muslimiinta looga saarin ma isdili karaa xadiidkii ghulaamka waad garanaysaa xadiidkii ghulaamka halkaasuu mariyey fatwo uu leeyahay way buxuud kaleeto culimo kale ka qoran way jirtaa mas'aladu halkaasay qaar marinayaan qaar uu sheekh ibnu cuthaymiin u horreeyana waxay leeyihiin maya xataa dawaabid kasta hala ahaatee mas'aladaasi waa isdil waa intixaar waa ruux naftiisa dilay waana xaaraan biliطlaaq ayagoon waxba ka soo reebin mas'aladu sidaasi culimmadu ay isugu khilaafsanaato hadda ka hor baa magaalada toronto ee canada baa sidan oo kale masalada laigu weydiiyey marka intan oo kaleetaan ka sheegay weliba kitaab baan u celiyey taqriiban hadda hadalladaas iyo lagu yaro ururiyey oo waxaa iska leh sheekh mashhuur xasan salmaan oo waxaa la yidhaahdaa muxuu ahay alsalafiyuun wa qadiyatu filistiin aqwaashan o dhan buu soo guriyey wuu niqaashay isaguna ra'yi buu ka leeyahay masalada markaan saa u sheegay wadaad gadaasha yimid baa la weydiiye oo wuxuu yidhi mas'alada wax khilaafaba kuma jiro waa ijmaac war ijmaac xaggee ku yaalla sideedaba cilmi haddaad qariso wuu kaa daba imaan moogta wax kitaab ku qoran haddaad qariso wuu kaa daba imaan adiga wixii jira sheeg haddana maca daalika haddaad awoodu leedaha waxaad tidhahdaa mas'aladaasi dhankaasay iila xoog badan tahay laakiin wixii dhallinyaradu akhrinaysa haddaad tidhaahdo maro saartood tidhahdo maba jirtaba dee wiil yar baa kaa daba imaan oo kudhi adeer waa tana meel saar kadibna waad isku dhex daadanay soo ma mas'aladu marka waxa weeye ma rabtaa mise ma rabtid meesheeda way laakiin mas'aladu waa mas'ale naazile ah culimmada muslimiinta culimmada waaweyn iyo kuwo kaleba khilaaf baa ku jira markay leedahay gaal keliya ku wajahan tahay dawaabid ma loo dhigayaa mise iyadoon dawaabid loo dhigin bay xaaraan tahay laakiin midda aan doona inay ku khatimo waxay tahay
caalamulislaami waxyaalaha ka dhacayaay labada ra'yi midna kuma dabaqna intaba way khilaafsantahay kuwa banneeyey ee dawaabid iyo shuruuda ku banneeyeyna lama raacsana kuwa diiday ee mutlaqan diidayna dee wayba diideen saas daraaddeed ninka maanta isqarxinayaay sheekh uu la socdo culimmada aan ka hadlayo oo muctabariinta ma jirto leanna waxa weeyaan inta badan waxa la samaynaya waxa ku baaba'aya waa muslimiin saas way macana wallahu aclam tan kale oo ku saabsan arrintan dhallinyarada qoraan uga hadlay masalada ayada qoraan uga hadlay oo muxaadaraad uga jeedinay aniga waxaan rumaysnahay inta qiraa'adayda ah saan muxaadaradii horeba ku sheegay nimankaa dhallinyarada ah iyo nimanka la yidhahdo daacish iyo inay usuushii khawaarijta tatbiiqinayaan aad baanan u tafsiiliyey muxaadaradii hore ee khawaarijta iyo fikirkeeda iyo dadka ku ta'ahuray halkaasaan ku faahfaahiyey waxaan rumaysnahay usuushii khawaarijta oo sideediiya inay tatbiiqinayaan haddayna kaba darinba bal waxaan rumaysnahay ururka alqaacida asalkiisa wax badan oo mabaadi'diisa ka mid ah in ay nasca takfiiriya oo khuruuj iyo muruuqa ku jiro waxaan la arkaya aahaartan soo baxbaxaysana ee laysradinahaya nafta laysu keenayna waxa laysku khilaafay waa uun qolo xadkii sii dhaaftay mooye laakiin waxyaalo fara badan oo usuul ah oo khaldan baa jirta sidaas daraaddeed waxaan leeyahay jihaadku waa mas'alo jidka loo marana waa mas'alo waxaan rumaysnahay marka arrintaas dhallinyaro yaan lagu baabi'in oo yaan lagu khaldamin oo yaan naar la gelin oo dhiig muslim adoo khaatumadii ugu dambaysa galay naar ha ku carray weligay wax ka dhiiran ma arkin oo weligay wax ka doqonsan ma arkin oo weligay wax ka caqli yar ma arkin nin intuu hadda ruux muslima dhiiggiisa galo isla markiiba daqiiqadiiba naftu ka sii baxayso midka dilahaya laakiin isle waad yala noolaan doontaa oo malaha waad toobad keeni doontaa waa ila roon laakiin hadduu dhimanayaa dhiig muslimna waa ku khaatimaysanayaa weligay wax igala dhiiran ma arkin marka arrintaa iyadaa aadaa looga taxadaro wallahu aclam